السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسو دhowow channelkayga ayaan goob doona mar kale isku soo noqod wanaagsan iyo muuqaal kale cusub. fadlan hadaa igu cusub tahay soo dhowow subscribe iyo saar ka mid noqo asxaabtayda. hadaa hore ila joogtana muuqaalkan like iyo saar waana mahadsantihiin dhammaan walaalaha ku xiran channelkayga meel walba aad joogtiin. waxaan ilaahay idinkaga rajeynayaa nabad iyo caafimaad inaad ku noolaataan. asxaabta cusub ee kusoo biirtay channelkaygana waxaan leeyahay gacmo furan kusoo dhawaada channelku waa channelkiina waa mar kale iyo muuqaal kale cusub iyo qisadii idil oo noo mareysay qaybteedii labaad. waxay qaybtii koowaad kusoo dhamaatay idil iyo xaajigeedii mar allaale iyo markii ay gurigii garaaceen waxay tiri anigu waxaan islahaa yacni wejigabaxnimo akiid kale ma kulmaysid, waayo adiga ayaa fadhigaagii hooyo ugu imaatay. waxaa suurtagal ah inay iska kaa saamaxdo weji qurux badan kugu soo dhaweyso, laakiin markii guriga laga soo tegaayo fikradda ah inaa aniga xaajigayga baxno aniga waa kasoo horjeeday, waayo waxaan cabsi aad u fara badan ka qabay in hooyo aan kala kulmi karo inay wejigabax nagu soo suubiso, in ninkan hadale aan guursaday ee igu ceebeyso. haddana saas taytaa ninkayga ayaa igu yiri waxaan yacni waxbaha kasoo qaadina, xataa haddii hooyo ay xanaaqdo anaga ayaa maslaxeyn doona. ugu dambeyntii waa aan soo baxnay. wadnahayga sida uu ii garaacmaaye qiyaas ma ayna lahayn, waayo marka aad cabsanaysid tawatur aad dareemaysid maxaa meeshaas kaaga imaan doono, gurigaagii ama guurkaagii ama mustaqbalkaagii uu yahay mid cusub, ninkan uusan aqoonin waxyaabaha gurigiina ka jira. dabcan ma jeclid in khusuusiyaadka noloshaada ama ha kuu qaraaraadaan adii familkaaga idiin dhexeeyo in la ogaado. haddana waa aan ku qasbanayo isaga wax walba waa u jeedaa, wax la iska indha tiri karo ama aan sii qarqari kara ma jiro. ugu dambeyntii waxaan soo socnaba albaabkii ayaan imaanay. abeenadii aan albaabkii saa u garaacnay waxaa naga furtay gabar yar oo gabdhaha ila dhashay ka mid ahayd. gabadhaasi iska ilmo ayay ahayd. abeenadii ee qacindhahay u siisaba guriga ayay gadaal ugu noqotay hooyo hooyo hooyo. macnaha waxaan dareemay mar allaale iyo markay aniga i aragtayba inay hooyo guriga joogto oo ay u sheegayso inaan anigu imaaday. hadalkii gabadha aniga iyo isaguba dalaq gudaha kuma aanan sii dhihin. markay iyadu aragtay carartayba xoogaa waa isi sii hakinay. kadib waxaa soo baxay wiil walaalkay oo ila dhashay. den soo dhawaada wuuna soo dhaweeyey, maadaama guriga haddii maanta hooyaday weji farxad leh aan ku ogahay, gabar hooyadeed inta la guursaday weeg dhan ka maqneed, dareen yacni aad u cajiib ah ayay marka gurigeeda ay kusoo noqoto gabadhaasi dareemeen. waxay dareemeen farxad badan, meeshii ay kusoo barbaartay, gurigii intaasoo sano ay ku nooleed, hooyadeed ama aabaheed ama walaalaheed oo 1 week ula mid ah 1 sano iyo in ka badan oo ay ka maqneed, meel aysan weligeed soo seexan ay soo seexatay. macnaha dareen cajiib ah ayay leedahay. laakiin taqayur ama is-agdhig adigiyoo dareemaysid in guriga kan aamarti ka tahay, qofkii nolosha aa la wadaagaysa ee 1 week kaliya ku qabo ee waqti fara badan aydan is aqoonin, oo haddana maanta waalidkaagii iyo adiga waxa idinka dhex dhacaaya aa rabtid inaad kala qarisid, haddana wax aa kala qarisa aysan meesha oolin. alcumuum sidii qof marti ah oo gurigii qariib ku ah ayaa waxaa dhacday in aan barandadii anigii ninkaygu fadhiisanay. dan abaayo ayaa waxaan ku iri anigoo sideen magaalnimo ula hadlaayo, hooyo ma joogtaa mise? waxaan isla markiiba dareemay inay hooyaday joogto. abaayadii yareed ee markii aan guriga soo gelaynay, markii kuraastana loo dhigay oo biyo cabitaanna loo keenay, ayaa dib waxay ugu soo laabatay halkii nala fariisiyey. markaas waxay bilowday inay halkaasoo kale inta iga istaagto ay ifiiriso, ninki fiiriso. dareenkaas marka wuxuu i dareensiiyey ay gabadhaas bixinayso inay hooyo joogto, inaysan rabin markaasi inay aniga iyo xaajigayga nala kulanto. isla markiiba waa iska fahmay sababta aan u dhahayana abaayo hooyo ma joogtaa mise waa ay maqan tahay. gabadha kale ila dhalata waxay tahay calal aqali in ninku uusan fahmin, haddana kida gadaal wax walba uu ka fahmi doonaa. alcumuum waxay igu tiri hooyo way baxday oo daris meelahaanay jirtaayo maybe in ay soo noqoto. kadib cabitaankii ayaan iska cabnay. abaxaaji waa soo booday, wuxuu yidhi dhimo lahan waa aan sugaynaa. xaala sugayaa ma qof ugu tala gashay in ay nala kulmin oo gurigii dhinac ka joogto oo aan rabinba wejiyadeena ayaan sugaynaa. anigu ma dhihi karo ma sugayno waa baxeynaa, waa sugaynaana ma dhihi karo, waa aan iska aamusay. ugu dambeyntii anigii asagii ayaa sheekaysanay. walaalaheeyo dhanaa imaaday, waa ay barbarteen.
adigu saacad camal markii aan joogno oo abaaya ay tiri iska qadeeya maybe hadda cabaar sii joogtiin inay hooyo imaato oo aan ku irmaya dhima lahan waqti kala imaanayna waayo aniga waa dareensanahay inay hooyadii guriga joogto laakiin aysan rabin inay aragto aabe ayaa albaabkii soo garaacay u fiirso farqiga u dhaxeeya aabe iyo hooyo aabe abeenadii albaabka soo galay wiilkii si qurux badan u salaamay anuu isalaamay wuuna la fariistay wareedhe maxaa qada u sii weyseen qada soo diyaariya iyo qadadii hadda yacni samaysanunaayo qada ma sugaynay dhaheen maya ma baxaysiin walay ka tahay waa inaa qadaysiin wiilkii si fiican ula sheekaystay anigii waxaan isku dayay marka maadaama uu xaajigii iyo aaba sheekaysanayaan inaan gurigii gudaha u galo waana aan ku qasbanahayo dee meeshii marti ahaan camal ma sii korkusanaanaye dareen cabsi uu guriga gudihiisana wuu igu jiraa oo waan ogaa inay hooyo ku jirto dan gurigii markaan gudaha u galay ayaan waxaan abaaray tiri qol aan ku aqaanay hooyada inay halkaa waqti ku qaada jirtay laakiin nasiib darro qolkii hoose ayuu ka xirnaa waa aan iska fahmay gabadha ila dhalatay ayaan waxaan ku iri hooyo way joogtaa soomaha iyadoo jikada ku jirto markaasi waxay igu tiri maya ma joogto ee qolkaas waa xiran yahay canugtii yareed ayaan si gooni ula hadlay haa idiley hooyo way joogtaa way ku jirtaa ay igu tiri ugu dambeyntii markaa go-aan waxaan ku gaaray inaynan qada sugin waayo intaas hooyadeey guri ma ku xirnaa karto waxaan dareemayaa inaan caburinaayo soo aabe iyo xaajigaa usoo baxay waxaan ku iri aabbo waa aan baxaynaa maya gabadhaydiiya ma baxaysiin waa qadaynaysiin oo hooyadaha markii aan tagaayay wax yar ka hor ayadoo ile waa aan iska joogaa maanta meel uma socdo ayaanba halkaas ku sheekaysanayna war guriga hore gudaha ma u fiiriseeno amay hooyadii hurdaayo oo aaba iska yiri asoo waxba aanan ogeyn markaasaan ku iri maya hooyo anaa gudaha aaba anaa gudaha galo hooyo ma joogto waa ay maqan tahay okay bacdeen waa aan iska soo baxnaanay xaajigaygii meeshii aaba ku macsalaameyne alaabtii iyo lacagtii iyo dharkii wixdan aan wadnay waayo maacuunaan waday waxaan waday dharka noocyadooda kala duwan dan markaa waa aan soo baxnay tiri anigoo aa u malaysid sida aan lugaha u jiidaayo xaaladda aan ku suganahay qof ku jira xaaladaas maahane qof kale uusan qiyaasi karin waa aan soo baxay waxaan isku dayay inaan xaajigaygii ka qariyo in hooyaday guriga ay joogtay in kale laakiin alcaaqil yafhamu bilishaara qofka aqliga leh ilaan qofka kani dhoos ama dhoohan maahane gabadha ayadoo gudaha aanan anigu gelin ayaa dareenka ay bixinayso aan ka fahmay in macnaha yacni saacda ay ii fiirinayso hooyo way joogtaa camal way kaa dhuumowsaa alcumuum waa soo baxnay waa sheekaysanay qof aada u cajiib badan u ahaa waxyaabo ku saabsan inay hooyo joogto iyo in kale ima uusan weydiin jidkii aa ku sheekaysanay kabacdi asaga meelo kaleo iga haray gurigaygii ayaan iska aaday mar alaale iyo markii aan gurigii aaday aan waxaan u ooyay sida qof hadda xorriyaddii ilinta heshay oo kale macnaha qof aan awood u lahayn inay oyso laakiin ooyin u baahan waayo waa xilliga gabadha ugu baahi badan tahay hooyadeed inay ag joogto hooyadeed la sheekaysato hooyadeed wax walba la sheegarayso dan marka la igama baran gurigan inaan xilligan ah oo aan qolkayga hoosta inta kasoo xirtay isaga jiro oo anigu aan ooyintayda islaayaysan ku arag familkan inaan ooynaayo ma aysan ogeyn albaabkaa la iisoo garaacay sadooda ee iisoo garaacday xoogaa waa aan soo daalay oo waa aan dhisanayaan ku dhahay dan waxay igu tiri okay qadada lagu keenayaa waa kakaasaa bacdeen qadadaydiyaa fadhigayga la iigu keenay kabacdi gurigaygii ayaan sii dhaqday noloshu si macquula ayay usii socotay ayaana waxay tiri waxaan samayn jiray waa waxyaabaha cajiibka ah xaajigayga waxaan leeyahay hebelow hooyaan rabaa inaan aado lacag intaasoo kale isii hooyo way i cafisay marka qaar taleefon been ah ayaan waxaan iska dhigayaa inaan ku hadlaayo inay hooyada isoo wacaysoo kale marka qaar meelaan aadahan faamilkaan oo dhan ku dhahaa waxaa laga yaabaa asxaabteyda inaan aado ciddatan iyo wiilkan ciddiisaba waxaan uga dhigaa in aan gurigii hooyaday jiray subaxii markii uu asagu baxaayo shaqo aadayaba waxaan ku iraa hebelow maanta hooyaa u socdaa maanta xaafadaa u socdaa markaas igu salaanheeyaa oo isakee iraa bacdeen marka waxaan muddo sidaa wadaba uur ayaan yeeshe markaan uurkii yeeshay waa walacay walaciyaan ku dhibaatooday hooyaday ilaa iyo hadda heshiis ilama hadasho bacdeen waxaan bilaabay guriga habaryaashay
in aan aado oo habaryaal inta u tago ayaga kusoo nafiso habaryaal marka waxaa jirto aan mar walba u sheegi jiray hooyaday maxay igu nacday marka qaar waxaan ku dhihi jiray habaryaray amaysan hooyaday i dhalinba oo anigu hooyo kale aan leeyahay hooyo gabadheeda sidaan u jaraysa weligay iyo allahay ma arage maalinkii iigu darneed waxay ahayd maalin maalmaha ka mid ah ayaan sida caadada ahaydba guriga marka qaar cunada waa kariya marka qaar ma kariyo laakiin markaan walacaan ahay oo walacii ayaa la iigu naxariisanaa waa aan soo baxay waxaan isiri guryaha habaryaashay mid ka mid ah waqti ku soo qaado la soo joog la soo baashaal ayadaana igu tiri anigaa waxyaabo dhadhanaan kuu suubinaaye ii imaaw ani marka odaygaygu maadaama biil gooniya aanan qaadanin oo guriga cuntadu hal meel laga sameeyo oo maamada guriga ee eedu soo adeegto raashinka soo dhigto aniga keliya waxyaabaha aan ku dhaqanayo kale dharka xaajigayga dharkayga allahu mustacaan qolkaygu wuxuu u baahan yahay oo kale yani qaybta aan deganahay waxay u baahan yihiin oo kale ayaa waxay tiri khaas la ii siiyaa oo bisha markii la soo adeegayo aa la idhaha haye maxaa rabtaa kaalayo dukaanka kasoo qaado waxaa rabtid ama marka qaar maamada ay tiraahdo ora dukaanka shay allaagi shayga arti kasoo qaado aniga sidaa hore in kugu sheegay jiko iyo wax walba gooniya ii aheyd laakiin markaan cidda arkay inay cid wanaagsan yihiin oo anigana uur yeeshay ayaan go-aan ku gaaray inaanan wax jika gooni ah aanan shidin xaajigayga subaxii u baxaa duurkii waa iska maqanya habeenkii u imaadaa maamadan sadohdeeya waa maamo jow ah maamooyinka jikada gala maxaan ku dhahaye isheeg subaxii inta soo kacaan muufa inta suubiso oo muufada mara lagu duuduubo oo waxaan ku iri lagu rido maxaa la dhahaye geedadkan oo barafkii zamaan lagu rido jiray darmisyada barafka lagu rido oo canjeelo gooni loo suubiyo koosta yacni cunto kala duwan ee jikada inta gasha suubine waa maamo weyn laakiin waa jawjaw kaala arag ah gurigooda waa guri cuntooyin nooc kala duwan laga suubinayo soo marka aniga cunooyinkoodii aan iska jeclaaday marka habeenkii casho fariisha la karinaa mar muufaa la karinaa mar waxaa la suubinaa marba cunto kala duwanaa la suubinaa soo marka maba ku qasbanin inaan keligay jiko shito anaa markii dambe murtaax ku ahaa maadaama cidaysan faquuq iyo wax lamid ah aysan aqoonin soo marka lacag waxaa la isiiyaa oo odaygayga uu isiiyaa oo maamada tan ee sadohdeeya ay ayadu tala ahaan ku siisay siduu asagu ii sheegay in bishii oo kale lacag gooni ah la isiiyo hadday noqoto konton hadday noqoto hadba siduu ii siiyo 70 oo aniga shoppingkayga keliya aan ka dhigto aniga marka waxaa suubiyaa xaajigayga lacagtaas markuu isiiyo dhacdhac waxyaabo ah ayuu sidoo kale isiiyaa aqli aad formaaj yani full ah ayaan qabaa haddana hooyadeydii dad iigu dhaweed ayaaba ifuquuqayso bil walba $50 ayaan meel ku ritaa soo $50 $70 mar isiinaa mal $100 isiinaa mar $80 isiinaa waxaan suubinaa $50 isagu waa lama taabtaan koon baa loo suubiyaa 3 bilood markuu isku gaaro suuqa la aadaa dahabaa kusoo iibinaa lacagta kale waxaan suubiyaa marka waxyaabaha aniga dhadhanaanka aan rabo wixii baabaashaala wax walbo laakiin gurigaas yani aan uga baahdo dukaanka ka soo qaada karaa baatigayga iyo waxyaabo yar ah lacagtaan la ii siiyaa soo habaryartaan marka waa habaryar aan nolol waay ah yani nolol high ah aanan ku jirin marka lacagtaas yar ee aan marka qaar ama 10 ha noqoto ama 20 ha noqoto ama 5 ha noqoto xilligaas lacagtu waa lacag fiican aan u geynayo ay murtaax ku tahay soo marka waxay tiraahdaa $3 kale hadaa u tuurto $4 kale hadaa u tuurto adeegay soo wada gaday bajiya marka qaar suubinay bisbaas iyo dunya wax dhadhanaan ah ay suubinay anigana marka qaar 5 u tuura marka qaar 6 marka qaar 7 biilkeeda aab laga yaabaa inay u buuxiso soo marka mar walba waa aadaa ayadana aadeed iyo jeclaate adduunkana xoolaha waa waxyaabaha la isku jeclaado anigana murtaaxan gurigeeda ku dareemaa waxaan ku iri cunto maasha Allah oo يعني أنا عنتوين كواوج أهني سوبنة لكن أنا جا يقول صعته مالمها كمين السيدة عدد إيه هذا مركا عبرير أيام أتجي وصوب حي مركا وحنا هاي ولعي إن كسي بحياة مدة جرجي ذي مركا ساو إماضي مالكاس علمي هذا أيا دوكسي مركا كسو ذا يعني نقناي الباب كي مركا فرنا علمان بنانك كم خنا أبين ذي جرجي عن ساو قلي هو يدي أو برحدي فريسو oo habarii la sheekaysanayso ayaan arkay miiga aaminaysiin saa markay dhaqac igu siisay ee isla markii waxay tiri haye waa ka sii tagay mac salaamo
warsaa igu daldalaysa waa aan daale aasan inta ku orday oo isku duubay oo ku baroortay aan waxaa iri hooyoy adima ii dhalin miyaa hooyoy maxaa ii nacee maxaan kaa bi'iyey aasay tiri naaya iska inaaya iga foqay tiri xoog waalidka yacni raaligelin loogama dalbadee aasaa habaryar koyse miyaadan bini aadan ahayn miyaadan beer wax dhalay ahayn taas aan dhalay hadday wax iga bi'ido waxaa sheegaysa iyo wax ka daranba hadday iga bi'ido waa saamixi lahaa gabadhaada waaye qofkuu bedelaya miyaa jiro yacni sida aan waxay tiri ana ugu barooranayo oo ugu dheganayo malay kartid waa waalid si kasto ay u adagtee way beer jilicday way igu ooysay si yacni qayra dabiiciya aan isugu ooyna anaa weliba zaa'id ooye ugu dambeyntii meeshii ayaa habaryar nagu heshiisiisay waa iscafinay baxdeen waxaan go-aansaday maalin kale inaan gurigii ugu imaado waxay igu tiri okay adii xaajigaaga ii imaada sidii markaa isku cafinay aad ay maalinkaas farxad waxay ii ahayd aanan qiyaas lahayn oo wax lagu tilmaamo agteyda markii loo fiiriyo aanan ama wax aan ag dhigo aysan lahayn soo maalinkaas farxad ayaan habaryar uga soo tegay hooyo xataa way iila sii joogtay meeshii waa ku qadaynay waa ku baashaalnay waa la isku wareystay den waa aan soo baxe maalinkii ay ibalamide waxaan u malaydaa yacni jimcadoo kale noo imaaday tir talaadoo kalea la joogaa maalin maalmaha kale iiga duwan oo sanad in ay iga xigta camal aa u malaysid waayo waxaan rabaa xaajigayga inaad tuso hooyaday oo ii faraxsan hooyaday iyo qoslayso hooyaday oo habbi dareemayso kaala araga bacdeen maalinkii markii la gaaray xaajigina waa usii sheegay labadeennaba waa isdiyaarina sadoodeena u sheegna maanta qadaha noogu talagelina gurigaas ayaan u soconaa ani sidaan idiin sheegaba lacag ayaan aruursa jire waxaan go-aansaday inaan lacag aan aruuriyey oo $200 inaan hooyadii u geeyo bacdeen maalinkii waa soo baxnay waxyaabo markaas oo guriga aan dee gacan qabsi aan u geynayaan hore usoo gadgatay ilmaha iyo aan u qayqaybinaye gurigaa imaanay casuumaad VIP oo kaala aragaana loo suubiyey halkii aan ku sheekaysanay markii casuumaadii ay dhamaataan hooyo qol gooniya la galay waxaan ku iri hooyo waxaan u qarashaa isgelisay waa ku mahadsan tahay lacagtaanaan kuugu talagalay qaado mayay tiri casuumaadda anaa kuugu talagalay lacagtaadana kaama rabe hayso gabadheedii lacag ima siinayso waa ku qasbay ugu dambeyntiina noo kala qaybiyay tiri 100 ayaan siiyey 100na anay isiiso waa soo ceshtay maalinkaas maalin iiga farxad badan ma aysan jirin aad ayay shucuurteedu u bedelneed farxad qiyaas aanan lahayn anoo dareemay aan gurigii kasoo tegay yacni marka qaar waxaan iloobayay tiri in xaajigayga aan ku dhaho hooyaday waa heshiisanaha maalin walba waa u tagaa yacni waxaa iga soo fakfakanaysa inay hooyaday maanta ila heshiisa camal asagase qariib u ii fiirinaa ugu dambeyntii gurigeenii aan sidii kusoo aadnay waqtiga iyo waayuhu wuxuu isguraba hooyaday inay ii imaatay bilowday laakiin hooyaday waa dhimbil maaragtay waayo aad ay u kulushahay gurigoo kale masalan anaga gurigeena oo aan deganahay hal ganjeel oo weyn aa naga dhexeeya baaraxaad zaa'id weyn aa guriga ku taalo masalan oo kale guriga marka qofka banaanka joogo iyo qofka gudaha joogaba labadaba maya qofka banaanka joogo qofka gudaha joogo ilaa qofka banaanka joogo uu shabaqas u qaado qofka يعني قفك بنانك جوجون قفك جودها جوجون وأركع مالي روش القاجرة هو يذا مالك إيمان يسوع ديو قفي وبرحد فديو الباب حوجا الأولى جيستو مالك هسبلايا يتالها نايا عدان مرهبان إنه إمادو قميسي بدنا وحان مد كلام عدان أنا جورستي لهجت أيان دي بدي حالي صودا أياني لو قدها دهن وايو قفك أجنبي ما هالنعم وارون لكن محل يجري أفوا كنا ميلك عامي مالها يعني أفك واكناي أسقي على قرب إنه وحكي التفاصيل إيه وأوكين ويرون واي حدا مثلا وكله ماي يمحاتري وكله هذا ساسي كليين أيها وإني شرحها واي وصاب له قريو متعلو عدان وماي قبضان جوستي لكن ماي كليه ماهن قبضا ويلك هو يذيس معها معي وددك عد قبيلة بدني وكل بحياة يعني بجدي جليلي شانشي يعني هذا وكل بحان مرة بينا بالزبط الشيء وعدو عدة تاي قبيلنا حوجا ممنوع منه يا غير قنصح غير قرعنا عندنا واحد
ukala baxaan laakiin laf kamida ay yihiin soo marka famil ahaan laakiin markay isku dhex jiraan ayagoo maygaas ah qaybna maxaa tiri ayagoo ah oo luuqad kale ama lahjad kale oo u gooniya ayaguna ay ku hadlaan haddana markay lahjadan mayga ku hadlayaan caadi iskula sheekaystaan kasiyi inay hal lahjad wada yihiin hooyaday haddii ay aragto cidan oo markay misalan oo kale soo baxdo masquul oo kale masquusha banaanka oo kale guriga ay ka wada dhaxaysaa ay gasho kale waayo hooyaday ma aanan jeclayn masquusha xaajigeygii aniga naga dhaxayda qaaska inay gasho aad ay waxaas uga xishootaa masquusha marka banaanka jirto markay galayso maamada hooyadeed ayayaan dhihin anaga aad joogto waxaa joogto walaasheed guriga guri zaa'id loo buuxa wiilal bulsho waay soo marka misalan oo kale barxadii maray masqushay galay hooyo hadii cidaas ay maygii ay ku hadlayaan isla galaan afka maalinkaas balaaya ka dhacda ayay xamanooyaan naaya maxay afka isku la galaan balaaya wax qorona ku guursatay balaaya waxaan lagu lahjad ahayn lagu luuqad ay dhayada laakiin lahjad waa sida saxda balaaya waxaan lagu lahjad ahayn ku guursatay naawa maxay waxaan inay xamanayaan iyo inay amaanayaan aanan kala garanayn asaan waxaan dhahaa hooyo aniga laftirkeyga anoo ag fadhiya afka isla galaan aniguna kalama jecli hooyo qofku markuu ku xamanaayo wuu ku soo fiirinaa nooc kale wajigiisa isku bedelaa hooyo kuma xamanayaan albaabka markay ka soo gasho hooyaday hadday laajada ay ku hadlaan ay cidaasi ku hadlaan ayeeyada salaami mee maamada guriga oo wiilka dhashay xaajigeyga salaami mee gabdho badanaa guriga jooga salaami mee waa soo dardare cidda waa yaaba markay baxday dhahayaan naa kaala idileen maxaa hooyada ka bi'inay maxay maanta waxaan aqsineen hooyaday meel haddii looga soo kaco dadka dhan way ka jartaa hooyaday dabiicadeeda saas waa maybe maanta meel kale ayay ka xanaaqsaneed soo marka waxaa suurtagal meesha ay ka xanaaqsaneed dabiici ahaan saas waa anaga mana dhalinoo haa anaga ilmaheena haddaa guriga wada joogno hooyo lacala banaanka ama meel ay ka shaqaynayso laga soo xanaajiyo anaga way naga jecel intaa juuq mana dhahdo dad saas dabiicadooda tahaana jira mogtihiin soo markaa anaga ayna dhashaybo saan yani aa ka hadlowsiin oo ku aragteen uu dhaqankeeda ahaa markii dambe caadi ayagoo iska salaamayaan hadday luuqadii lahjadii gashtaan saas ayagoo salaamaya inta loo fiiriyo aa laleeya waabay xamanaayeen anigii waa ku wareeray maalinkii dambe gabdho dhowcilaa ayaa meeshii ku jireen waxay bilaabeen inay dhahaan alla islaantu kibir badanaa alla maxay taa naagtan waaba ay dardaree dadkee anigu waxay tiri wixii waa iska dhiga tiraa alcumuum waqtiga waayo wuxuu isku rabaa si hooyo iigu imaanaysa ani ugu tagaayay cidiina dhaqankii hooyada ay ka yaaban yihiin oo aan leeya hooyo waalid waayo iska salaan hooyo adiga ma ku xamanayaan unbaa waxaa dhacday maamada ilaan waa bini aadan wiilkeeda u sheegtay waxay tiri gabadhu horta waa gabar fiican walaalaheed iyo aabaheed iyo kulli waa fiican laakiin habar naxaraha dhashay maxay tahay habartan wiilow markay anaga gurigeena imaato na dardaraydo na kormaraydo gabadheedu waxaaba laga yaabaaba la deganaashaha ee anaga nala degan tahay inay duqda tana dhibsatee maandhow maa guri kala degtid maantay duruufna nama haydee anagaaba raalli kaaga ah maamadan marka guri kale ayay leedahay oo u kilaysa waxay tiri hooy macaan gurigaa lagaa guurinaasho maamadan qafuurka taagaysa ayada dhinac canaysane wax laga bi'iyey iyo meelay u soctay meelay ka soctay aanan la aqoon ma naqaano wax laga bi'iyey bal gabadheeday diidan tahay midhaay aan meel gooni dejino aniga mayaan dhahay hooyaday dabiicadeeda sida ah hooyadaa u sheeg meel gooni ma degayno haddana waaba dhowahay oo qof caamilo iska oo bil ama 2 bil kadib dhali doontaan ahay walaal macaan intaa naga guurin alaabtaan iyo furfurow iyo adduunyo ma geli karnaa adin ku qanacsan tahaa mawbta ahaa sidii waxay tiri laysaga daay mar alaala iyo markii waxay tiri ayaanay aan dhali rabo oo dhalmadeedii saa u soo dhawaatay hooyaday maalin ii imaatay haddii ay ii imaatay awal markay ii imaanayso telefoon ay ii soo diri jirto oo kuu soo socdaa ay dhihi jirtay maalinkan ayadoo iigu talagelin ayay sikadiisa iigu imaatay hadday iigu imaatay waxay aragtay anigoo inta la ii soo gargaraacay la ii keenayo cuntadeyda waa gabar kuleelisa inta cunto loogu soo shubo fadhigeeda loogu keenayo fiiriyay tirinaayaa weligeedna marka ma aysan fahansanayn
إن أنيجا جكذا يعني أنا وحبة كشدن أو عدة أنا لعنتايو وايو إما جرين حلي بالضبط وكلا مثلا قضاء وكلا دق أنت يو إما توكلا أنا يعني حلي قاس قضاء إن كري أي تاي حاجة يجينا ما بتشوف جبا حليات أي مركا إما هذا واحد حاجة يقول جوجن قضاء أنا كرينين أو إسكان الصناعي مالن كان حترفيري ما حي جوجدا ماشي لوجو سور ذي أنا مركا عنتذا مركان أنا عسلاضي وحبضن ما أنا عنو وحير رور مرن عليه وحنا وحير على إيسو أجرو كل ليس وحير الإيسو ذا أن سلات ذي الجيش بس كيس شرف على إيسو مع موسى عبدانك وحول بوالي إيكينا نايا يتري أو كلام باسمه مشد ميا أو أذيك أبن نايا كتش أنت ماله إحلقوه صوصيو أسان كوقنا عسنتا أسان وشيكي ساس ما كوقنا عسنتا شونا إسلامي الحقيقي ليه المركا هذا بناكتي هذا أيكو قناعسنته والجوجا مالي كاس سداس إيش كذي نو أفجر متى بعدين حلقي المضى أيا لجاري مركي حلقي المضى لجاري ومركن مركي وحول بإس بدلي تونان أيا واحد هذا إسبتالكي أيا انقلي فوشي ذي أي وديراتي ويلكي قبي هبين إيمان ويكرتاجين يحي شقة مركو مثلا وكله كف فرسان واي وربا إنو آدو هو يديس يولاليس وابتو ياهي وليا يلا بوسكي وإنا بوحسين عنتدي حلقة لوغو تلقلي فامل كان كلم وح نامكينايان وإنا ديان قطودات كأنيقا هريريقا جوغا لن عندو ذا أيقا صوتي هرينايا وحيتي رأيانا انتي أنفولناي وحاد حذي هويو مال محكم ذا مهبين ذا كمذا ayaa ayadoo cunto inta la kala gurtay qaybtii aniga iyo hooyana loo reebay oo aniga foosheeda fuuldiin camal iskeed isbitaalkan ayaa laga bixinaa la dhahay cidii loo qaday inta ay cunaayo hooyana qaybtoodii ani ay noo soo guray afka isla galeen inta xanaaqday habaryartay marka joogto oo karkartay ay tiri dhageysta oo saan cunadii cunaayo fiiriyay tiri idinkay tiri horta way aad yani dadka kale ugu ixtiraameyn inaysan hadaladiina fahmeyn waxaan aku hadlaysiinay tiri meel looga hadlana ma aqaane qaabkeeyiina ma aqaane luuqada waa aad ka saysiin ama lahjad yani waxa anaga ku hadlay waa ka saysiinay dadka waa lagu qiimeeyaa hadalka aysan ka saynin marka anaga joogno maadaama isbitaal ay isku wada jirno isku day inaad ku hadashiin waxaan ka sayno anigi shawfoosh iyo sawa idii sakhracan maamadii wiilka dhashay intay karkartay tiri fiiri luuqadan annagaa iska leh waana ku hadalnaa adiga liajligaagana ma u daynayno ilaan waa u buuxde meeshiyaa la isku kacay aniga xaajigaygiyaan wacay waa foolanaa hooyada isbitaalkii waa kaa tagaayay tiri naya isbitaal kalaan ku geysanaa markaasaa anigii macidiyaan ka tagaa ma yacni taqriiban isbitaalkii waxay igula jiraan 3 beri abaf dhaqaatiirtu waxay dhaheen ma bixi kartiin hooyaday wixii soo istaagtay naayaa isbitaal alaale iskan marka xaajigayga ay keenay kaan aniga rabo aan ku geysanaa kaaga sii darane ciddaan isbitaalkan ayaga ay keeneen ka famil ahaan familkooda ayaa waxay tiri isbitaalka dhakhtar iyo kalkaalisaal iyo ay qaraabayiin ayaa jooga naa meeshaan ayagaaba ka taliyay tiri anayba rabaan inay ii taliyaan markaasaan anigii aabbo waxay aabbo hooyo la hadal aabbo xaalad adagaan ku jiraa way waalantuu dhaa hooyada mana laga bixinaa isbitaalka iyadii la hadlay war waa qaldantahay tiri waa laga bixinaa xaajigeegiyaa imaaday hooyo u babariyay hooyo waa ku bariyaa hadhasho keliya gabadhaada waa wadane haddaa rabta xataa ma ku imaanayaan ciddayda daarta waa kaa kaxaynaa laakiin gabadha isbitaalkan ha iigu dhasho ceeb waayo hooyada intaasay dul fadhiday gabadha inay si nabadgelyaha lagu faraxsan yahay ku kala imaato waa asagii hooyadiis iyo qaab u qanciya ma yaqaan hooyaday waxay taagantaa inaba isbitaalka waa aan kala baxaynaa يعني قبل إذا وأن كان بحا أنا ويا هذا فوشي وين إمروا يرعد هو ينبريا هو يواكو بريا نايا يتري أنا جوار مرة بو قبل إلا بعد يكسر قشة يا إما إن دقدان أي كفولسيسته وأتكب يا وذلك سجوتي يا إما إن تكلين نايا يرعد واسيدي وكله أنا جوا حيتري هراي أنا وحن أويري
hooyada inta xaray oo markii la ii saaray shaashke markaan anoo fooshiihaydo aabbeena iga daba qaylinaayo aan iradan ku raaca baabuuray isla markiiba jaaq igu soo siisee taksiyaala joog isbitaalka hortiisii xaajigeedii cidiisi waa hore weji gabaxnimo aasaa waxay tiri isbitaalkii cidi looga soo tegay hooyo isbitaal kale keensata aabe cidiyo u haray kadib maxaa xigay ninkeedii halkaa ayuu ku goy doonaa oo canugiisii ka xaaraantii mismo doonaa mise la soxo qaybta 3